iska soo noqod wanaagsan dhammaan reer youtube meel kastoo dunida daafihiisa joogtaan waan idin salaamay salaan kadib saaka waa subax jimco ah jimco mubaarak dhammaantiin aada iyo aad baan idinka mahad celinaya subscribe-ka iyo sida fiican eed ila socotaan videogana meel dheer gaadhsiiya maanta iyo berri oo dhan baan videogan duubaya videogan video dheer buu noqon doonaa waxaan saa idin leeyahay laba wiil oo maad aragtay aniga dee bidixdayda iyo midigtayda midnaan habaryar u ahay oo gabadhan ehelka a dhashay iyo wiil oon ilmo adeer nahay baa labadaa wiilba isku maalin guursanaya midna waxaan rabaa inaan meherka maalinimada ka qayb galo midna habeennimada arooska inaan ka qayb galo because labaduba labo aan midna ka hadhi kara maaha halkan waxaan kusoo diyaarsaday sabaayadan waxaan rabaa inaan hadda qaado oon hoteelka ugu geeyo cidada iyo adeerka insha allah iyo caruurta qaarkood wixii cuni kara waxaan rabaa 20 xabadood oo sabaayada iyo suqaarkeedii iyo falaas shaaha wuu iska yaalaa meesha laakiin waxaa yaala dee tea bag yar oo dee layskaga rito laakiin shaah soomaali baan rabaa inaan u kariyo I don't know haddaan idinla wadaagay mar walba maaragtay markoode maaragtay aad kelita dhinac wax ka duubaysa dhinac wax ka karinayso is little bit hard marka saaka markaan kacay ciyaalkii iska kala maaragtay kikiciyeen toosiyey iskuuladoodii isku diyaariyeen ay tagaan xataa lunchigaan u sameeyey idin lama wadaagin because mashquul awgeed hadda chai seed baan halkan kusoo qastay chai seed xalay baan radiyey marka hadda lindana baan ku darsanaya waan cabayaa marka chai seed aroortii way fiican tahay calooshiino empty inaad cabtiin anoo haddun baan bilaabay laakiin wax weyn baan iska gartay ila soo tijaabiyay insha Allah biyo karkaraya habeenkii iska radiya aroortii biyo yar oo karkaraya ku darsada lixba jeex lindanaana ku miirta bakeeriga qalafkaasi wax badan baa iska kiin bedelay fudayd badan iyo waxaan dareemay xoogaa maaragtay calooshii oo ii noqotay empty marka waa kan daqiiqdii cusbadii baan hadda ku darsaday oon ku walaaqaya biyo ii karaya oon rabaa inaan biyo kulul ku xashtaan rabaa farahaan iska soo dhaqay kas daqiiqdii aan ku walaaqay baa weli gacantayda kasii cadcad marka halkan chai seed-aydii aan ku cabayaa wax badan baa iskaga gartay saan idin sheegayba iska tijaabiye marka sabaayada markaan xasho xoogaa waxay ii soo noqon doontaa dee way soo gali doontaa intay soo galayso shaahiya waxaa iska sii karkarsanaya marka chai seed-aydana soo cabayaa hada waa idinka hawsha ha socoto halkaa hawsha kala socda sheekadeeni baan inoo bilaabaya sidii caadada ahaydba mar walbaynu wax duubayno waxaanu jecelahay inaan iska sheekaysano maanta waxa dabka inoo saaran gabadh madow ah oo maxaan ku idhaahdaye qisadeeda daawaday maad aragtay xalay hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka waxay ahayd gabadha hooyadeed ayay la degan tahay gabadha waa gabadh wax baratay hooyadeed maanta kusoo dadaashay kusoo tacabeeshay markay wax bartayna gabadhii markay waxbarashadii jaamacaddii wixii oo dhan bogtay nin madow ah oo maxaan ku idhaahdaa ay madowga dee waaba dawada madow baynu nahay laakiin dee iska maad aragtay dib jiro oo dariiqa iska fadhiyo oo maad aragtay dadka maaragtay dhaca ah ayay gabadhii baratay gabadh yar oo aada u qurux badanna way ahayd hooyadeedna maad aragtay dee hami weyn ayay maxay ahayd ay kala hayd dee gabadha marka ilmo walba lagu dadaalo iyo ilmo kastoo dhasho waxaad la jeceshay meel wanaagsan ilaahay awlaada inoo xifdiyo meel wanaagsan Allah inoogu wada hagaajiyo gaal iyo islaamba dee wadamadan markii la yimaado ummadu way isbedelayaan oo maad aragtay wadankan ay la macaamileen unbay ilmihii noqonayaan marka Allah inoo wada xifdiyo awlaada dhan waxaa dhacday markay gabadhii baratay adin ninka dhowr jeer bay daaqada ka aragtay isagoo guriga maxaan ku idhaahdaa hortiisa kula hadlaya islaantana dee way taqaanaa dee waa nimankan streedyada meelaha fadhiya wax ku burburiye ee dee meelaha maad aragtay maxay ahayday ku bahalkiyeeya marka way taqaanaa korkay ka taqaanaa markaasay ku tirinayaa hehe sabaayadii baan soo xashayaa hadda hawsheenii baan galay sheekadana way noo soconaysaa waxay tirinayaa he ninkan kula hadlayay meesha kula taagnaa muxuu ahaa markaasay tiri waa wiilaan isbaranay ahaa markaasay ku tirina wax kuu sheega haa hoy iska jir ninkan nin fiican maaha waxaan arkay maxay ahayd isagoo dad gruuba iyo maaragtay gaangis la socda marka nin maaragtay maxay ahayd walaalay ku anfacaya maaha dee intaad ka dheeraan kartid ka dheero
waxay tiri hooyo waa iska caadi waxaase wax walba hadala ka keenin iska aamuso aad islaantii way ku madax adeygtay adee alxaasil ninkii wax la istaba soo socdaba markii dambe guriga eryadiisaba may keeni jirin meelo kale kula kulmi jirtay aduu shaqana way raadin jirto islaanta de mar walba waxay dhihi jirtay shaqo raadsa islaantunba u shaqayn jirtay intay wax baranayeen oo dhan iyadii walaalkeed wiil kale walaalkeedana uu jiray bas marka waxa dhacday gabadhii maxay ahayd wiilkii markay baratay aduu wiilkiiba iskala socotay waxay la soo socotaba aduu calooshuu soo buuxiyo urbay soo yeelatay uurkii markay soo yeelatay islaantii way garan weyday waxay tiri naayahay maxaa kaa qaldan waa xabada say u hays ado shaqo yar oo waxay soo heshay maxaan ku idhahdaa home care la dhaho waxaa weeye dadka waayeelada la ilaaliyo shaqadii markay soo heshay ayay shaqadeedaasay iska tagtaa odaygaabay lasoo joogtaa shaahu soo iro karkarisaa guriguu soo irana nadiifisaa dee maxay ahayday xoogaa lasoo joogtaa lacag bay dee siiyaan marka yaquuba meesha marayo maxay ahayd malaha ma arkayaba baalkan duubay waa kan kiciyo hadday soo kaceen iyagana sida diyaarinaya iskuul isku diyaarinayaan ciyaalkii marka waxaa dhacday maxay ahayday uurkii markay kusoo baxay adiga meeshii de islaantii len hawshii wax walba dhib kasta hooyo iyo waalidunbuu haystaa adiga islaantii la dhibay culays la saaray dhakhtarkii geysay ilmihii soo dhashay baa waxaa dhacday maxay ahayd ilmihiina de islaantii mudusha ka saaranyay shaqadii dib ugu laabatay islaantii marna shaqada ay tagtaa marna cunugiiba meeshan u fadhiya haysaa bas alxaasil waxay sheekadii sidii ahaato ay maxay ahayd meeshii laskala rafaaday cunugii adu sanad buu gaadhay sanad markuu gaadhay stiil ninka waa u tagtagtaa meeshaan ku lawaxanaya baan hadda nadiifinaya ninka waa u tagtagtaa maxaan ku idhaahdaa de markii dambena wuxuuba yiri baana inaan cunugayga arkaan rabaa oon guriga ii imaado de islaantii talaa ku ciirto hadalkama keeni kartee hayoon bay tiriyo iyadoon wallaahi habi ku ahayn buu ninkaasi soo geli jiray heer wuxuuba gaadhayba dee gurigeeda uu la joogaba oo maaragtay qolkeeda uu lasoo maaragtay islaantu markay maqan tahay uu iskala joogaba wax la cuno wax la cabo qolka la seexdo uu bilaabay maalin bay ugu timid marka isagoo meesha joogo haddana waxaan kuu sheegaa haa walaalay ninkan ani gurigayga hayga keenin gurigaygan wax walbaa ii yaala ammaankaygaa ii sugnaa walaalayaan beritoole kurka layga goynin ani gurigan ninka ha ii keenin oo yaa dhageysanaya adi ninkii alxaasil waxay ninkii de guriga keentaba maalintii dambe waxaa dhacday odaygii yaraayo shaqadiisii ku noqotay de markay dee ilmihii u yaro koray marka odaygu waxa uu dhalay gabadh maxay ahayday korka ka ilaaliso oo guriga kamarada ku xidhatayo de hawlihiisa la socota marka 3 qof ayaa isweydaarta oo maxaan ku idhaahdaa meesha shaqada maxay ahayday iyada iyo 2 dumar oo kale mid marka waxa weeyaan qoladan Asiaanka midna waa naag cadaana marka gabadhana waa gabadha madowga saddexdoodaas isweydaarta maalmaha kamida waxa timid gabadhii baa waxay timid gabadhiisii baa u timid odayga shaqada gabadhiisii markay timid ayaa waxay guriga waxa ka jabsanaa jikada ayaa waxa ka jabsanaa meesha qasabada maaragtay weelka lagu dhaqdo meesha singiga jabsanaa marka wuxuu yiri aaba waxaan rabaa inaan meeshan la hagaajiyo oo dad u yeero marka waxay ku tiri ana aaba u yeeraya adi lacagtan ku dhiibi lacagta si qiimahan ana la heshiinay telefoonkan kaaga soo sheegay haye marka lacagtii bay u dhiibaysay bay gabadhani arkayso $10,000 oo isku xidhan oo xidhma ah bay odayga u dhiibtay odayguna qolkiisu meel ka geliyay gabadhani marka lacagtii bay arkayso lacagtii markay arkaysay ilmaheedana markaa de lacagtan yar ay qaadato kiray ka bixiyaan salaantana hadda ma shaqayso biilka gurigana iyadoo dusha ka saaran ninkana lacag waa laga laaya maalin walba waxa ku tiraad ma child support baan ku geliya mise cunugan lacagtiisa waad keen ma maantaan keen berri baan keen shaqo raadin ahabu ku yiraahd bas had markii dambe lacagtii markii aragtay bay wallahi iska lacagtii eegtay way iska baxday iyada de ma qaadan karto lacagta because waa qof shaqaala waxa dhacday marka maxay ahayd gaari yaro qorqoru lahaabo meeshii ka doonayo isagoo soo qaadaya beetir wallahi wiilkaygiina waa iga bilcaano mushaharkiina de wiiga dambe ii soo dhacaya waxaan ku gaadho wiiga dambe male wallahi marba waxay qabatay odaygaasi inantiis u dhiibaysay lacag 10,000 10,000 wallahi ma soo qaadataaba ay qabatay
markaasuu ku yidhi don't worry anaa maxay ahayday kuu keeni inankay racaanihiisiiyo waxoo adoo xasu ku yidhi haye bay ku tiri way iska dhaqaaqday by the time u sheegtayba gabadhii inuu lacag dee 10 kun gurigaa yaale ku saaxiibka oo isaguna tuuga unbuu wacay qolku wacay unbuu wuxuu ku yiri un maxay ahayday in waryaahe bal maanta shaqaan inoo hayaa ee kaale haye bas marka wuxuu ku yiri ila nankana dee gabadha wuu keenaa oo wuu ka warhayaa saacadda oo dee shaqada la galo saacadda lasoo dhameeyo marka shaqada soo dhamaysa gabadha wuu weydiiyaa odayga markuu wuxuu ku yiri wuxuu yiri bal dhowr cisho odayga rootiinkiisa ayaan weydiinayaa naagtan kala sheekaysanaya kolkay war cayuman isiiso ayaan maxay ahayday hawsha gelayna haye bas marka maalinta habeenkii dambe iyadoo gelinka dambe mar gelinka dambe gashaa mar gelinka waxay gashaa duhuradii shaqada mar aroortii saddexda qof way isku kala weydaartaan laakiin qofka ugu dambeeya 10 fiidnimo ayaa ugu dambeeya odayga marka medicationkiisa la siiyo cashadiisa la siiyo la seexiyo sariirta loo goglo markaasuu qofka ugu dambeeya ka baxa marka habeenkii iyadoo ugu dambeysay ka baxaysay jimcaha ahayd Friday nightkii wuxuu ku yiri haye odayga ma seexisa hawa seexi asuu yiri odayga iyo habeenkii ilaali markaas tircidina ma ilaaliso maxay hayday gurigana kamarada ku xiran inkastoo kamarada dambe naga jabantay wiigan uun raadinayna bay ku tiri qof noo sameeya weli nooma imanin laakiin waa kamaradana way ku xiran yahay gabadhiisana ma aragtay way la socotaa xaalkiisa oo gabadhiisu waca hadii uu noqdo wax ma aragtay emergency ama xanuunsanayo iyo waxaas gabadhiisu waca gabadhana neersankay wacdaa haye odaygu dee oday saa dhulka u sii yaala maaha oday iska caafimaad qabo iska socda laakiin dee waa qof waayeelo iskaga baahan in la ilaaliyo wax loo karkariyo guriga loo nadiifiyo bas laakiin muu gaadhin heerkii maaragtay musqul la geynayay ama wax laga bebedelayay xafaayadii muu gaarin odayga musqushiisa uu iska galaa caadi wey bas marka waxaa dhacday maxay ahayday waxaa dhacday bas detailkii wuu helay ninkiibuu wacay wuxuu ku yiri waryaa gabadhii gurigaan geeyey odaygiina waa la seexiyey medication baa la siiyaa baa la yidhi odayga dawadii way soo siisay 2 saac baan siinaynaa intuu dee galayo deep hurdo calashaan hurdo dheer intuu galayo adilaa 2 saac baan siinaynaa dawadu qaadanaysaa kulley 2 saac ka bacdi waxay tiri gabadhu kamarada dambe way jabsantahay xagga dambe inuu guriga kasoo galayna haye buu yiri xafiya bukii kale wuu u yimiday gaadhiga meel dheer soo dhigteen gadaashii dambe soo jabiyeen gurigay soo galeen guriga hadday soo galeen waa kan odaygii meesha fadhiguuba fadhiya TV buba daawanay odaygii dhanay gabadhu tiri seexay dawada siisay ilaa ninka hadday iska caafimaad qabee wuxuu rabay malaha dee inuu wax iska yara daawado gadaal ka seexiduu rabay waaba odaygii fadhiga fadhiya nimankiina dee waa kuwan gurigii way soo galeen saaday u soo galeen buu yiri maxaad haydeen kaasum baa lagu yiri waxaad haysidkaan haddaad afkaaga ka maqalana waa dhimanaysaa wiilkii marka wuu naxay kii uu u yeedhay asaga ma nixine kii gabadha qabay ma qabina dee gabadha meesha ka shaqaysa saaxiibka la ahaa uu naxay wuxuu ka naxay meeshii dhanaydu dee ka shaqaynayay علشان حاسكي naagto dee ka shaqeynaysay saaxiibadii oo ilmihiisa dee nolol maalmeedkiisa kiradii looga bixinay dee odaygiina maanta uu arkay wajigiisii lagu hurdaabo salaa wajigiisa xasaasa buu soo qarinin kan kale uu soo qarsaday buu wajiga kan laakiin wax badan ma qarsanin inta afku buu soo qariyo maaska soo xidhay sankiisa indhiisa caadi baa loo arkay wuu naxay ku naxay buu yiri walaalow inaga maray maya wiil waan soo galnay waa inaan qaadana lacagta xanuun nimidna hadda waxaan qasanayaa vitamin C gii baan qasanayaa xoogaa dee sabaayada maadaama dubayo quraac iyo waxa ma quraacanin chai seedum baan weli cabay marka waxaan rabaa xoogaa energy because waashan energy bay ku siinaysaa aroortii oo kala dad cabta xilligaad rabtaa laakiin cabi karta aroorku ma xidhno ana hadda energy iska raba intaan cuntada samaynayo bas marka waxa dhacday wiilkiina mari wuu diiday odaygii unbu halkaa gidaa maxaan ku idhaahdaa maxaa la yidhaha margiga unbu ku dhuftay odaygii afka dhulka u geliyay kii kale kii naagta saaxiibka la amahay kii kale u yeedhay guriga la galay afkii u geliyay qolkiisii unbu galay wixii dollar iyo diinaar yaalay buu soo aruursaday albaabkii buu ka baxay subaxnimadii waa goorma
waxaan u malaynaya 12 dee after 2 hour gabadha 10 bay ka baxday 11 12 way goortay usoo galayaan 2 saac kadib 12 wax bay usoo galayaan kowdii habeenimay ka baxeen dee wax intii wax guranayeen inta meesha jibinay wixii aad u hal saac bay ku qaadatay kowdii markay ka baxeen kowdii habeenimo saqda dhex ilaa maaya subaxdii 6 subaxnimo halkay gabadhii shaqada ka soo galaysay odayga wuxuu ahaa conscious oo dhulku yaalay asaga dhan gabadhii markay soo gashay tiima ahayd tu kala soo gashay marka tan habeenkii awlaada tu kala markay aroortooda way naxday gabadhi way qaylisay waxay wacday waxay wacday gabadhiisii bay wacday gabadhiisii markay wacday wax ku tiri aabahayo waxaan u imiday dhulka yaala iilamana eeka qof maad aragtay maxay hayday dee xanuun iyo rafaad halkan keenay ilaa sariirtu ku dul dhiman lahaa hadii ku dul maxaan ku iraahdaa suuxi lahaa haduu maxay hayday isaga oonkiisa wax ugu dhacay waxaan u malaynayaa in dad heed gareeyeen dad wax gaarsiiyeen gabadha waxay ku tiri immediately ambulance-ka wac anigana gaarigan soo drive garaynaya because iyada gaariga furug soo rogaysa de ma wici karta meel hayay dhahday tii kale waxay wacday qolyihii booliskay wacday iyo qoladii keerku ku jiray ayaa la wacay kambaniyada lagu jirjira maaragtay marka la shaqeynayo shaqaalahan ku soo diraya kambanigii bay wacday kambanigii iyo booliskii iyo gabadhii kulligood waa la isku yimid damaash odaygii baa la cararay ambulance baa lagu qaaday dhakhtarka la geeyay koomu galay wuxuu adigu lama hal usbuuc buu odaygii koomu ku jiray koomihii markuu ku jiray uu maxay ahayd usbuuc ka bacdi ka soo baxay dee booliskuna intaa way raadinayeen shaqaalihii wax weydiinayeen gabadhu dhalay wax weydiin waxay tiri aniga abahay saacada uu baxo saacada uu seexdo iyo saacada maxaan ku iraahdaa oo maxay ahayd shaqaaluhu ka tago shaqaalahaygu baa yaqaan saddexda naagood ee shaqaalaha ee shaqeeya abahay u shaqeeya hal la ii baaro saddexdii naagood baa la geeyay police stationka waa la baaray saddexda naagood saddex naagood wax og maaha mid maanta tanina markay sheegaysay ismay lahayn lacagaa laga dhiciyo ninkaas u iman ismay lahayn hal naago ku lug leh ma jirto ma garate bas markaas naagii waxay yiraahdeen anagu hadaan shaqeynay iyo hadii kaleba anagu waxaan ku lug leenahay ma jirto markaas la yiri kamarada inay jabsan tahay iyaa og kulligeen waa ognahay saddexdeena waan ognahay gabadhiisuna way ogtahay waan report garaynay markaas la yiri haye iyaa maxay hayday aad u sheegteen gabadhii markaasay baraarugtay iyaad u sheegteen kamaradu inay jabsan tahay markii la yiri bay baraarugtay waxay tiri waxaan u sheegay saaxiibkay dadkan ma aragtay wadamadan ku noolna waxay ku fiican yihiin waa dad daacada oo ma aragtay ma qariyaan waxba kale yiri saaxiibka baad u sheegtay ha maxaad ka wada waxba uma sheegine just aniga kama wadine wuxuu igu yiri odayga iyaa ilaaliya markuu su'aashu i weydiiyay baan uga jawaabay aan waxbana de uma arkaynin yaa ilaaliya gabadhiisa ilaaliya guriga kamarada ku xiran marka inkastay kamarada gadaasha hadda naga jabsan tahay intaas aan ugu raaciyay waxa la yiri ninka noo tilmaam odaygeena intaas uu soo baraarugay oo soo reystay ninka noo tilmaam baa la yiri way tilmaamtay ninkii waa la soo qabtay markii la soo qabtay wuxuu yiri anigu ma xad shaqayna kumalihi maxay hayday waxbana anigu maxay hayday kama ogahay odaygii baa soo baraarugay odaygii markuu soo roonaaday lala hadlay waxa la yiri odayo haye ma garanaysaa dadkii ku soo dhacay hadii lagu keeno wuxuu yiri aniga mid ma arkaynin wajigiisa laakiin mid baan si fiican u arkay wajigiisa markaas la yiri haye ma labay ahaayeen ha labay ahaayeen kii kala loo tagay waxa la yiri labaad ahaydeen baa la yiri sheeg wuxuu yiri waxaan laba ahayn ma jirto aniguna ma tigi adun baa lagu sheegay kamaradu inay jabsan tahay hadda sheegi wada jeel baa gunta lagu dhigay ninkii waa la soo kaxeeyay odaygii baa loo keenay waxa la yiri ninkan waa haa buu yiri isaga iyo ninkan waa ninkii kala keen baa lagu yiri adaal xaasil wuxuu warwareegay baad ninkii kala uu sheegay nimankii waa la soo qabtay jeel baa gunta loo dhigay odaygii gabadhiina shaqadii waa laga buriyay waa laga iriyay maxaan ku wadaad guriga soo dhex fadhiisatay ilmihii caana la'aan hooyadeed waxay ku tiri imisaan ku sheegay kala talinay imisaan kulaana ninkan waa tuuga ka hadh hooyo raali ahoo wallahi wax fiican baad ii sheegaysay anaa ku maqli waayay anaa ku dhageysan waayay hadda ka bacdi ma dhacayso shaqo kale iska raadsatay shaqadii kale iska heshay
shaqadii kale iyadoo iska shaqaysanaysa oo cunugeedii la daalaa dhacaysa nimankiina la xidhay odaygiina lagu soo celiyey gurigiisii baa igu dambeysay. marka sheekadeeni intaasay kasoo dhammaatay. hadda weli sabaayadii baan dubayaa. dee 20 xabo ciyaar maaha, 20kaba waan duubay. ya bal waxaan u duubay sheekadan aan rabay inaan inooga sheekeeyo taas waa u duubay. marka laakiin wax badan kama hadhin. hadda maxay ahayd waxa ka hadhay mayo waxa ka hadhay 11 daqiiqada meelahaasaa ka hadhay. marka sabaayadii baan qaaday waxaan geeyey hoteelkii. kolley idinma duubi doono. kabacdi waxaan tegayaa sabaayadan iyo suqaarkan kolkaan dhameeyo waxaan tegi doonaa salaatal jimcaha. waan soo tukani. kolkaan soo tukado hadduu ilaahay raalli ka noqdo adiga berri toolana waxaan rabaa markaan soo laabto waxaan rabaa gabdhaha inaan geeyo meel timo. gabdhahayga labadayda yaryar iyo gabadh yaro walaashay dhashay saddexdaasa ina iraacaya iyo walaashaybaa iraacaya. marka kolley meesha oon timahan geeyey idinma duubaya laakiin gabdhaha kolley iyagoo arooska sii galaya waxa waan idin duubay. because Siham iyo Evian saad u ogeydeenba way naceen in wax laga duubo. waxay yidhahdeen biliis hooyo aan ku baryaynaa hana duub. marka korkaan wax yar ka yara duubay. intaa korkaan baan insha Allah idinla soo wadaagi doonaa. meel koofeeraan geeyey Friday nightkii timahan soo hagaajiyey. duruuc maaragtay guriga ii yaalay oo duruucdaydii hore yaryaraan xidhanayay bay xidheen. naaga waaweyn bay noqdeen. shalay markay youtube-yada duubayeen 5 sano ka hor beebiyaal bay ahaayeen. 7 jir bay ahayd Evian ma Siham 7 jir bay ahayd. Evian 9 bay markaas sii galaysay. Sihamna markaa 7 jir bay ahayd markaas 8 waxay ku gashayba youtube-ka iyadoo duubays. 1 sano kala weyn yihiin iyagu. marka maxay ahayd maantana dee naaga waaweyn oo teenager ay noqdeen. Evian 15 bay gashay this August. Sihamna waxay gashay maxaan ku raahdaa 13 weeye. marka waa kaasaa sabaayadii waan dubay suqaarkii waan kariyey salaata jimcihii baan tegay oon soo tukaday. gabdhihii baan habeennimadii timaha geeyay oon timihii usoo sameeyey. maxaan ku raahdaa sidiiba maaragtay jimcihii nagu dhaafo waagu noogu baryay. kabacdi waxaa maalintii Saturday-da waxaan qaban doono ayaan insha Allah idin sheegi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. sabaayadii baaba igu daba dheeraatayba weli waan wadaa. weli waan wadaa hawsheedii. sheekadii dhanaydna waan soo dhameeyey. waan dhameeyey sabaayadii xabadii u dambeysay wataa suqaarkii baan hadda soo saaray dabka. suqaarkan inoo boobsiinaya waxaan ku dardaray oo dhammaan idinla wadaagay. xawaajiyadaas iyo hasaan ku daray. baradho yar baan ku daray. basal iyo barbarooni baan ku daray. dee suqaar yaroo jamo oo maaragtay lagu cuno sabaayadan halkaa u diyaariyey. waan soo dhaqaaqay hadda masaajidkii baan imid salaatal jimcaha. masaajidkan waa masaajid yar oo maasha Allah qurux badan. waxaa laga dhisay xaafadii gurigaygii horeen ka soo guuray. walaashii baan isla soconaa isla soo tukanaynaa iyo maamadii oon maxay ahayd quraacda ugu geeyey hoteelka wiilka dhashay. marka maamada kama duubin laakiin qofkaas sii socda waa walaashay. marka hoteelku lahaa masaajidkii baan hadda galnay. salaadii aan tukanay. bal waxaan isku dayay muxaadarada inaan idin furo codka insha Allah markaan masaajidka galo. marka masaajidkana aad buu qurux badan yahay. waa lagu farayareystay kaale iska arag. wallaahi jimco kasta iska daayay. duhur kasta iyo casar kastaan markaan time helo kusoo tukan jiray. kusoo nasan jiray. quraanka kusoo akhrisan jiray. aad baan ugu soo dareemi jiray maad aragtay farxad. jikadiisii waa kan. halkan biyahaad ka cabi. haddaad rabto koofi baad karsan kartaa. shaah baad karsan kartaa. kaale iska arag. marka dadka eriyadaas u dhow Kobaag buu ku yaalaa masaajidkani. anigu haddaanan maalintaa shaqo tegayn waan tegi jiray oon iskaga soo maxay ahayday nasan jiray. oon quraankaygii waxayga soo akhrisan jiray oon iskaga soo biyahayga ka soo cabi jiray. oo kaale iska arag. qaxwihii shaahi waxaad rabtaad karsan kartaa. biyo kulul iyo biyo qabow waa loo sameeyey. musqulihiisa kaale iska arag. hotel baad moodaa musqulihiisa. marka maxay ahayday waa kuwaas shaahi iyo sokortaan idin sheegay inkastoo aanan ku qabaninba si fiican. markiiba waan laabto salaadaan rabaa inaan galo.
waxaan rabaa maaragtay salaada weli may gaadhin, waxaan rabaa inaan dhegeysto xadiiska. Weli dad badan maba imaninba, marka insha allah waan idiin sii dayn intana codka insha allah. Taught us the importance of the Muslim community. He warned against abandoning people simply because dealing with them can sometimes be difficult. And let's be honest with ourselves, we are difficult. We come to the masjid and we annoy one another. maanta waa maalintii dambe ee sabtidii, saaka sidaan usoo kacnay annaguma makeup aan marsanayno isti diyaarinaynay. makeupkiidin lama wadaagin, waan idiin sheegay ruulka, because naagahan waxay igu dhaheen please snapchatyadaada aad u duuduuba, annaga hana duubin. anigana dee markii time ba uma helin inaan keligay isduubo maadaama iyagu makeupka ii marinayeen. hadda receptionkii baan soo galnay, waa imaanay, nikaaxii baan kasoo qayb galnay, saana loo sharaxay receptionka. maasha allah tabaaraka allah, ilaahay waxaan uga rajeynayaa kuwii isku waara, isku dulduquuba. aniga waykan cabaayadan aan xidhay iyo qamaarkan aan xidhay black and goldiga isku jira, dahab yar baan xidhay. cadaradii aan hadda idin tusaya oo loogu talagalay dadka inay dhalooyin yaryar ku shubtaan. cilaankaa yar baan marsaday, dahabkaygaan jag isku siiyoon xidhay. dahab baan maxay hayday saacadaydaasaan xidhay. waa ka hadda miiskan soo fadhiisanay, waxaa weeye waatan maye waan fadhinayba, waan qadaynaynay, markaas waan qadaynay. hadda waxa weeyaan gabadhii baa soo galaysa, dadkii waa wada qadqadayin, raggana wayba qaarkood wayba dareereenba. hadda gabadhii soo yaro galaysa oo xoogaa maad aragtay dadka salsalaamaysa, cabaar yaro joogaysa, kabacdina markay faraantiyada isku geliyaan way bixi doonaan iyagana. marka kaala iska aragdee maalintii dhannayd ilamaa habeenimadii kowdii habeennimo wuxuu ku dhammaaday waqtigeeni maad aragtay labadaa aroos. ilaahay waxaan uga rajeynayaa labadoodaba kuwii isku waara, isku duquuba inuu ilaahay ka dhigo. marka haddaan kamarada siday tahay lagula duubeynin oo adiga dadkaad la socotay ayna rabin inaad duuduubto, adigii de waxaad awoodoon baad duubaysa. marka wixii aan awoodoon baan idiin duubay. badanaana dadka aad baan uga ilaalinayay, ma rabin inaa hal qof wejigiisa soo geliyo hadhow iska dhaxarko meeshaas. qofka bini-aadanka waa inaad ku respect garaysid maad aragtay codsigiisa. marka waa idinkaasaa. marka hadda gabadhii way dareereen, gabadhii wiilkii way baxeen, dadkii way salsalaamtay, dhalinyaradii way baxeen. islaamihii unbaa isku soo hadhay oo hadda durbaanka tuman doona. kabacdi anigu waan kasii tegayaa, waxaanu tegayaa because waxaan rabaa gabdhihii baa guriga igu sugaya, kuwii yaryarahay may soo raacin, guriga igu sugayeen oo makeupkoodii duruucdoodii waxood oo dhan bay sii diyaar garaysanayaan. hadda waa iska maqrib, 5 galabnimo weeye. halkana waxaan imaanay 12 duhurnimo aan imaanay, laakiin intaasoo dhan dee waxba ma duubin, meel yaro maan duubay. markaan sii gelayay markaan soo baxayo maan duubay, wax badan ma duubin. marka waa idinkaasa. qof walba hadduu ku arko wadankan adoo wax duubaya, bisinka maxaa duubaysaa, naga leexi baa lagu leeyahay. marka way kan banaankaan usoo baxay. hadda dhalinyaradii waa kaa way dareerayaan, gaarigaasaa lagu qaaday gabadhii iyo wiilkii oo kaala iska aragoo qurux halkan aan taaganahay. waa kaasheedu ma rabaa inaan wax duuduubo, aniga kamarada aniga keliya ay hayso. waa kaasa dadkana sheedu maan ka salaamaya. marka waa idinkaasa. dee markan waxay moodayaan inaan snapchat ka duubayo. waa ka gaarigii wuu dhaqaaqay, way kan aniga yaasmiin aan sugaya. hadda gaarigii noo soo dhaqaajinaysa, gaarigeenaan sugaya. gaariga markaan yaasmiin soo istaagto gaarigaan galaya insha allah. waa ka gaarigii yaasmiin way soo istaagtay. yaasmiin haddaan idin sheego waa gabadhayda curad weeye, maasha allah tabaaraka allah. iyada weligeed youtube-ka kamay soo muuqanin. I think hal mar baa sawirkeeda maybe aroos isku raacnaa sawirkeeda soo geliye, laakiin youtube-kan kamay soo muuqanin. laakiin 4 yaryar unbaad aragteen. marka waa tan, waa kuwa naagihii yaryaraa way labisteen. waa labadaasi waa Ebyan iyo Siham iyo waxa weeye Ilhaan. labadan kalena walaashay baa dhashay, ayagana Raxiima iyo Yamiina la kala dhahaa. walaashayna waa taas iyadana. intaa waan ka ilaalinaya iyadana kamarada. waa kaas receptionkan hadda sii koraya. diracaasaan xidhay, cagaarka iyo iskugu jira paypalka. garbasaarta cagaar baan ka dhigaya masarka, maadaama diraca cagaar ku jiro. gogaradana paypal baan ka dhigay because diracaan rabay inaan ku match gareeyo.
garbasaartana diracan ku maajgareey gogoradana diracan ku maajgareey marka waa idinkaasa sadkan Dubai baa maxay ahayday hadda ka hor la iga keenay weligay maba xidhaninba haddaan soo tashoon maanta ilaahay qadaray inaan gashado way kan halkan aan taaganahoon idin tusaya dahabkii iyo dharkaan xidhanahay way ka saddexdii naagoodna waa kuwan iyo walaashay wajigoodan stiil ilaalinaya because waxa la yiraahdaa duubin waatan meeshii gabadha loo sharaxay waa arooskii dambe kani marka keegana loo marka waa kaasaa gabadha meeshii loo sharaxay loo diyaariyay cabitaankii loo diyaariyay wiilka arooskii iyo way kan halkan aan gingimanahay dharkaan xidhay waan idin tusay diracaas kaale araga diracana waa wel weeye oo duruucda qaaliga ah garabsaartiisii gogaradiisa waa people laba kalar buu iskugu jira aan idiin sheegay waa kuwan kooxdii halkan ay soo fadhiisteen weli receptionka dadka badanaa mas imanin half baa yimid saa darteedan hadda uga faa'iidaysana laakiin hadda wixii ka dambeeya ma duubi doono intaasaan kusoo gabagabayn doonaa videoga xiga intaan ku kulmino sidaa iyo nabadgeliyeysa arag dambe oo xiisa leh because ma rabi maad aragtay inaan dadka duuduubo aniga intaan idiin duubi kari waan idiin duuba videogan intanaaba dheeraatayba oo kaale arag noqotay because laba isha dhan baan duubayay marka subscribe like comment share inshallah nasaad ila socotiin aad baan iiga wada mahad celinaya aad baad wada mahadsantiin de boqolkana sida ugu dhaqsaha badan inshallah igu tuura waxba idinkuma aha agtiina boqolka ma aha marka waa idinkaas halkan aan hees iyo adduun muusigana waan xiray because YouTube kuma ogolo muusigeed iyo waxaas waan wada xiray saa darteedan codka idiin soo saaraya waa kan wiilkii baa inoo soo galay wiilkii gabadhiiba hadda keega jaraya faraantiyada isku gelgelinaya biyahaas meeshan waa maalintii dambe qadadii aan reerka u kariyay reerka arooska aan u kariyay weeyaan sidaa ay nabad